nimanka dibadda ka qaylqaylaya ee la baxay awdal state waad la qateen baan leeyahay halkan haddaad moodayseen inay dhufaysniin noqoto waad la qateen ma noqonayso tuug baati wayna in fahmeen gobolka salal iyo reer awdalba way fahamsan yihiin ujeedda badantiina meel kasta oo deegaankayna caasimada tahay Boorama iyo hadday tahay degmooyinka kale iyo tuulooyinka kaleba waxaanu leenahay hala naga saaro waxaa loogu soo dhuumanaya wax isaaq la dhaho nacayb isaaq la dhaho ayaa loogu soo dhuumanaya oo ah tan isaaq waa wax ka ah meel labadeennu waa inuu ku wada dulmanahay bay idin geynayaan madaxweynaha waxaan sheegay horta Soomaaliland kale miyaan askar lahayn kuwii ciidan beeladkii shalay la qoray oo tababarkiiba u dhamaan yaa saaka lagu shubay Boorame waa guray cawl loo galay horta alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh soo dhawaad saaxiibayaal meel kasta ku sugantihiin halkan warbaahinta madax banaana haytiin kula soo dhawaada guud ahaan xaaladihii u dambeeyay iyo wararkii u dambeeyay 24 saacadood gobolka Awdal iyo galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadaas saaxiibayaal ayaan isku eegi doonaa ama diiradda ku saari doonaa xogihii u dambeeyay iyo dhacdooyinkii u dambeeyay 24 saacadood u dambeeyay ka dhacay magaalada Boorama magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waa ay degan tahay waxaanay ka degan tahay sidii soo tolay ahayd ay ka degantay odayaal dhaqameed iyo salaadiin gaaray deegaankaas iyo salaadiinta gobolka Awdal waxay isla ogolaadeen nabadda iyo la xoojiyo iyo guud ahaan shaqada halka ka socotay la joojiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu laalay ama joojiyay bandhiga buuga xeer ciise oo ah buuga ay fidnadu ka kacday dhacdo ayay sidoo kale xalay tababarta ka dhacday afar askari ayaa ku dhaawac saddex askari ayaa ku dhaawacmay halka hal askarina saddex askari ayaa ku dhintay halka hal askarina uu ku dhaawacmay waaye Muuse Biixiye daahir yaalo ku sugan Dubai waxay ka hadleen xaaladda gobolka Awdal waxa jira xaalad yar oo dheeraad ku ah iyo guud ahaanba xukuumadda federaalka Soomaaliya oo si qaawan xaaladda gobolka Awdal soo fargelisay maxay yihiin dareenada bulshada aan ogeyn maxaa madaxweynaha sheegay muuse saxay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi maxaa la gudboon wixii inta ka dambeysay reer Awdal iyo guud ahaanba Soomaaliland soo dhawaad saaxiibayaal qodobadaas ay barnaamijkeena diiradda caawa ku saari doonaa waxaanu si weyn u faalayn doonaa xaaladda guud ee gobolka Awdal iyo galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland inta ka horeysa fadlan ugu soo bir inteena xogahaas iyo guud ahaanba aynan arrimahaana gudagelin dhamaanteen baan ka qayb qaadano mustajaamici magaalada Badweyn oo aynu minaaradiisi wali la baco doonayno saacadku waa dhamaystirnay laakiin minaaradiisa waxa ay ugu rafatay markaan dhamaystirno alaykum walaalayaal masaajidkii aynu wada dhisaynay Badweyn hadii la yiraahdo masaajidkii waa kaas wuu dhamaaday masaajidkii dhismihiisii wuu dhamaaday wax yar oo hadii la ku qaliila ayaa ka harsan dhinacna ka weyn xagga dhismaha marka la dhisayo uu ka weyn yahay intii in badan baa la dhisayaa waa minaaradihii oo hadii laba ku roo yahay waad aragtaan waa qabiyo wataad aragtaan agdhigiina waa qabiyo dayrka yaaniga qurxin baa waxba ka dhiban laakiin soo dhamaaday guriga dhismii guri weynihiina waa soo dhamaaday soo dhameeyo minaaradaas ilaa 100 xabo dhow baa gelaya 100 xabo sibida iyo hadii laba ku rooyeen jidheerkeedii hawlaheedii baa ku socda yaaniga waxaan u haynaana waa qaliil wax ku filan maaha agdhigina wuu harsan yahay daaqadihii oo ayanaha goobahoodii iyo waxoodii way harsan yihiin gabagabahaas haray intaas bisha inta ka hadhay hadii Ilaahay nala qabto waynu gabagabayn karaa wada laba ku rooyay hadaan sawirku inagu yaaniga dib inoo ridin waynu gabagabayn karaa sida kale guriga waad aragtaan waxba anagu kala ma harin idina waxba kala ma harin runtii dadkii muxsiniinta ahaa ee guriga soo yaaniga ka qayb qaatay waanu ducaynaynaa Ilaahay caafimaad ha siiyo Ilaahay cuudka ha u barakeeyo Ilaahay caawiyalka wax walba Ilaahay ha u barakeeyo waan u ducaynaynaa intaasina way nagu hadhay waayahay 24 saacadood u dambeeyay waxa degan xaaladda gobolka Awdal kadib markii maalinta shalay toolaa ay ka dhaceen shaqooyin socday muddo 24 saacadood oo sababay dhimasho iyo dhaawac foorxin saaka salaadii hore waxa deegaanka gaadhay odayaal dhaqameed sida fariin nabadeed waxaana ay go'aan ka gaadheen isla markaana soo jeediyeen in buugi xeer ciise
la hakiyo gobolka awdal odayaal dhaqameedkaas iyo salaadiintuna ay joojiyaan oo ay la hadlaan dhalinyarada rabshka wada intaa markii la isla qaaday oo xaaladdu ay wanaagsan tahay odayaashaas intaan ay tegin ka hor marka hore jidgooyo loo galay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland 3 askari ayaa ku dhintay Allahu naxariisto oo togdheer ka soo jeeda iyo waliba sidoo kale hal askari oo dhaawaca dhamaantood deegaanka gobolka togdheer ka soo jeeda marka hore uu tacsiyeena kuwii hore u dhintay shacabkii reer awdal oo u tacsiyeena kuwii dhaawacmay oo u duceeyna wana u boogadayna odayaashu markay halka gaareen waxay sheegeen inay sidaan go'aan ah in buugi xeer ciise laakiin haddii odayaasha gobolka awdalna ay joojiyaan oo ay la hadlaan dhalinyarada rabshka wada intaa markii la isla qaaday dhanka kale waxay fuliyeen go'aankoodii ugu horreeyay ahaa inay sidaan fariin hakina waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaana uu sheegay in guud ahaanba go'aan madaxweyne uu buuga ku hakiyay intaa wixii ka dambeeyay xaaladda gobolka awdal markii hore waa deganta si kasta oo bilaabay loo fasirayo ama si kasta oo loo dhigayo wixii dhacay kadib isafgarasho xaaladda gobolka awdal waa deganta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu qaatay go'aankii ugu habboon ee nin geesi qaadan lahaa runtii geesinimadu maaha in walba go'aankaagu socdo geesinimadu maaha in markasta go'aankaagu fulo geesinimadu maaha in markasta go'aankaagu gacan sareeyo ee inaad tanaasuli karto ayaa geesinimada qayb ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagoo ka tanaasulaya hadalkiisii hore ka tanaasulaya hadalkii wasiirka warfaafinta ka tanaasulaya go'aankii xukuumaddiisa ayuu mar labaad warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in buuggii xeer ciise uu guud ahaanba go'aan madaxweyne ku joojiyay wixii khasaare bartaa ka dhacay inay xukuumaddu diyaar u tahay inay dusha ku qaadato waxay kale guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka golaha guurtida ayay arrintaa ka hadlay waxaana sheegay in guud ahaanba arrintaas la joojiyo dhanka kale madaxweyne hore Daahir Riyaal Kaahin iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ama dalka Dubai ayaa iyaguna ka hadlay arrintaas waxaana ay sheegeen in guud ahaan ay habboon tahay xaaladda la dejiyo waxay fariin u direen dadweynaha gobolka awdal waxaana ay fariin u direen dadka kala duwan ee jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadda Somaliland sidoo kale gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna ka hadlay arrintan waxaana uu sheegay markasta in go'aanka dambe saxan la raacayo waxaana uu ku bogaayay xukuumadda go'aankeedii dambe ahaa madaxweynaha go'aankiisii dambe ahaa inay waxweeye ka noqdaan go'aankii hore isla markaana go'aan cusub qaataan guud ahaan xaaladda gobolka awdal haatan waa deganta waxaana meesha ka baxay wixii la isku hayay kaliya waxay meesha yaaleen la xaliyo wixii dhacay oo ah sidii dhimashada loo aasi lahaa dhaawaca loo daweyn lahaa deegaanka iskaarsan loo gaarsiin lahaa dawooyin ku habboon mas'uuliyiinta gobolka awdal ee ka soo jeeday xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland gobolka ka soo jeeday inay gaar lahaayeen xaaladdu way fiican maxaa xaaladda ku dheeraada intayn aanu yoon xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi xaaladda waxaa ku dheeraada guud ahaanba xubno horta dowladda Soomaaliya si qaawan arrintan soo fargashatay taas oo laga dheehan karo in dadka reer awdal dareenkooda uu jiro dad kale oo ka faa'iideysanaya si khaldan u turjumaya baarlamaanka Soomaaliya arrintan xubno ka tirsan ka hadlay wasiir ka hadlay ayaa si qaawan arrintan u soo fargeliyay isla markaana sheegay reer awdal ay ka go'aan Somaliland reer awdal si loo ogsoonahay ma jirto go'aan go'itaan ay Somaliland ka baxayaan laakiin waxa jira go'aan ay ku diidan yihiin buuga xeer ciise inuu soo bandhigo saylac ama gobolka Saleem laakiin ma jiro go'aan go'itaan oo iyaga nafahooda ka go'ay iyadoo dhibaato ka soo gaadhay xukuumadda federaalka Soomaaliya taagta daruur arrinta ka faa'iideysanaysa ayaa iyadu arrintan mar kale gaasi kibid ku sii qabatay si khaldan ugu gacan haysay shacabkaas sidoo kale waxa jira xubno ku qoranayo magacyo kala duwan Facebook soo galiyay iska dhigay dad Soomaaliyeed oo iyaguna qoraalo kale iyo dhibaatooyin kala baahinay ugu dambeyn waxa soo baxay wajiga rasmiga ah ee gobolka awdal ujeedada laga leeyahay ee ah in kooxo kale ay doonayaan in kacdoonka ama diidmada reer awdal ay si qaldan uga faa'iideystaan reer awdal maxaa la gudboon reer Somaliland maxaa la gudboon reer Somaliland dadweynaha kala duwan magaalada Hargeysa iyo waliba sidoo kale dadweynaha gobolka Sanaag dadweynaha gobolka Togdheer oo guud ahaan arrinta ka hadlay ayaa si qaawan uga soo horjeestay waxaana ay barbar istaageen dadweynaha gobolka awdal oo ay sheegeen guud ahaan buugaas aan munaasib ahayn Somaliland lagu soo bandhigo waxaanay dareenkooda muujiyeen dadka reer awdal kow marka dadka reer Somaliland waxay diyaar u yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda oo la jiro bulshada gobolka awdal oo go'aanka xukuumadda aanay kula socdaan aanay kula raxaysan isla markaana reer awdal ay yihiin xaqlayaashiisa xalaba sheegay dhuuxi Somaliland reer awdal maxaa la gudboon reer awdal waxa la gudboon kow inay arkaan wixii dhacay way dhaceen shucuurta shacabka jecel
reer Soomaaliland qaataan garowshiyaha xukuumadda ninkii buugga xeer ciise diidanaa buugga xeer ciise waa la joojiyey ninkii Soomaaliland diidanaana waa iska soo baxaya laakiin marka hore wixii ay diidanayeen mar haddii la joojiyey wixii dhacay xalkooda inay u gudbaan ayaa la gudbo magaaladoodii nadiifsadaan wada hadal furaan meydka la aaso dhaawac la wada daweysto mowqifkooda ay qaateen ay xukuumadda isku barbar taagaan maadaama xukuumadda ay laashay buugga xeer ciise reerooda waxaa la gudboon in ninkii buugga xeer ciise diidanaa waa la laalay ninkii Soomaaliland diidanaana Soomaaliland waa joogtaa marka labadaa inay kala saaraan isla markaana ay xoojiyaan go'aankooda qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland calankii ay dejiyeen saaraan garowshii madaxweynaha qaataan meydka aastaan dhaawaca daweystaan xaaladda wixii lagaga bogsanay xukuumadda ay kala xisaabtamaan miiska wada hadalka yimaadaan wixii dhintay xukuumadda dishay wixii dhaawacmayna xukuumadda ku shaqale laga labayn maayo tuurta u saaranta laakiin inay garowshiyaha qaataan halka nabadana ay meel iska taagaan buugga xeer ciise Soomaaliland saa ay mowqif isaga taagtay halkay taagnaayeen baa la soo taagay go'aanka ay Soomaaliland la qaataan waayahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi xalay go'aan buu qaatay maantana go'aan buu qaatay waa geesinimo maaha qof in go'aankiisu guuleysto laakiin mas'uulka ama madaxweynuhu waxa shacabkiisa wixii kaga soo noqdo uu la dareen noqon karo xaaladda la jaangoyn karo waa geesinimo lagu arkaa dad fara badan siyaabo kala duwan bay arkay waxaan arkaa go'aanka madaxweynaha ee uu ku buriyay go'aamadii xukuumaddiisa waxaan arkaa geesinimo buuxda ayaan u arkaa iyo hogaamiye dabicsan dadkiisana la dareen runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinay waxaan caddaynaysaa in madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ay ka go'aantay mar walba in dadkiisa iyo dalkiisa marnaba aan dhibaato soo gaarin dabcan wixii dhacay qadar bay ahaa shaydaan ka adeegay laakiin madaxweynaha waxaa ka go'an in mar walba shacabkiisa dareenkooda uu ku shaqeeyo maxaynu ka baran karnaa dhacdadan waxaan ka baran karnaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxda ku hareeraysan sidaan horeba u sheegnay ama muuqaalo horena waa ku sheegay inaan ahayn madaxdii la baxsan lahaa waqtiga adag hoggaan jilicsan baa ku xeeran dowladnimadu waxay u baahantay madaxweyneyaal wasiir madaxweynaha ka dhicin baa u baahanta go'aan gaari kara xaaladda qiimeyn kara laakiin uma baahna wasiir sugaya warqadda ama hadalka madaxtooyada ka imanaya laakiin waxay u baahan tahay wasiir sida madaxweynaha hogaamiya aragtida madaxweynaha ku shaqeyn kara madaxweyne Cabdiraxmaan oo muddo sanada la doortay xukuumadda uu soo xushay ma aha raggii ka saari lahaa waqtiga adag anuu muuqaalo horena ku sheegay dabcan tanna maanta markhaati bay ka tahay xukuumadda waxaa la gudboonay isbeddel madaxweynuhu sameeyey marka hore talada madaxweynuhu uu yeeliyey iyo go'aamada madaxweynuhu qaatay dhammaan waxay ku dhisan yihiin talooyinkii ka soo ururay cidda ku xeeran madaxweynuhu qol galay muu tashan laakiin dadkii uu dirsaday go'aanadii iyo xaaladii ay u keeneen ayuu madaxweynuhu ku maal qaybsanayay madaxweynuhu go'aamadii dadka ku hareeraysan u keeneen iyo xogta u soo ururiyeen ayuu ku maal qaybsanayay madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo isbeddel ballaaran guud ahaanba golihiisa wasiirada taliyayaashiisa ciidanka dhammaan inuu isbeddel ku sameeyo digreeta madaxweyne soo saaro isku laba rogo barasaabyada refreshment uu sameeyo refreshment xukuumaddiisa waana halka qura ee uu kaga badbaadi kara mar labaad xukuumaddiisa inay dhiiqaaga la gasho dabcan jawi hoose oo diblomaasiyadeed oo horumarineed oo nabadeed ayay xukuumaddu ku socotay waxaanay kasoo gudubtay caqabado waaweyn caqabadana waxay ahayd mid ka mid ah xiraalayaasha xukuumadda soo waajahay ee cusub dabcan si mar dambe turunturada noocan aan u dhicin madaxweynuhu waa inuu saaxiibada hareerihiisa taagan dub u eega wixii aan la jaan qaadi karaynin ee uu arkay xaaladan oo cilmigiisa kaga bartay waa inuu bedelaa waa inuu keenaa hogaamiyayaal iyo wasiiro iyo taliyayaal iyo barasaabyo iyo mas-uuliyiin la jaan qaadi kara dareenka shacabka go'aamin kara xaaladaha dejin kara wax ka tari kara xaaladda dabcanka xaaladda boorman aragnaa rag badan baa ku fashilmay in kuwa shacabku ay barteen dabcan madaxweynaha markaa waxaa la gudboonay xukuumaddiisa wax ka bedel uu ku sameeyo guud ahaanba xaaladda boorama waa degan tahay sida horena waa ka degan tahay walow ay jiraan ciidamo hubaysan waddanka deegaanka ah oo ku sugan boorama iyo gudaheeda iyo hareeraheeda haddana gobolka madaxweyne markii uu soo baxay tan iyo wixii ka dambeysay xaaladdu mar ka dambeysay way sii qaboobaysaa waana sii degaysa waxaana muhiima in dhaqanka iyo salaadiinta gobolka awdal ay qaataan doorkooda maadaama dhaqanka iyo salaadiinta kala doorkooda ay qaateen xukuumadduna go-aankeedii ay bedeshay in iyaguna madaxda kala duwan gobolka awdal kasoo jeeda kaashanaya salaadiinta dhaqanka in bulshada ay dejiyaan bulshada gobolka awdal marnaba wax ceeba ma laha iyagu anugu 199 dad shacaba
وحوي وحيد ديناين عديي أي حاجة أنت حرنا إلا سيدايو أنت بكتنا للدوية أنت خدمتنا على أعصاب حالة أنا بدو صوت بعض صاحبي اسمه دافنو قولي هبة برامج كان عاوي تسأل خصوصا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.